Bismillah, Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteena, waa mar kale iyo walaashiina Safiya Xubiyo soo laabatay oo muuqaal cusub inay wado. Ugu horreyn channelka hadaad ku cusub tahay subscribe noo saar, hadaad hore noola joogtan soo dhawaada mar kale walaalo. Maanta waxaan dhammaystireynaa qisadii ahayd saaxiibtinimo part 2 geedaan dhammaystireynaa inshallah nala socda asxaabe. Waa kana Salma waxay wax walba u sheegtay Mariyo, waxay tiri ninkan aniga uu i jeclaa, anigana waan jeclaa, saayidaan isku jecleen. Maalin maalmaha ka mid ah mobilkiisa oo maxaan ku radaa agteeda ku dhaafay oo ku dhowaa arkay, adiga ka arkay kadibna saasaan ku kala harnay. Laakiin waa wax mar hore ahaayeen wayaan bay tiri. Mariyo markaa way ka diiday, waxay tiri wax mar hore ahaayeen ma jiro, adiga waa jeceshahay wiilkan oo ku jeedaa wixii jiro asaga la wacay. Asaga markaas looga wacay uu imaado, wuxuu yiri adigana waa ku jeclahay, adigana waa ku jeclahay, hadeertaan la joogane labadiina waad ii siman tihiin. Qof hadda aniga aan khaas u qiyaamayo misna aniga aan dhahaa ma jiro, qof kalena ma wadi, labadiina le waaye. Labadiina gabarna waxaad igu noqoteen laba gabar oo saaxiib ah. Markaan aniga marka hore maanan ogeyn, gadaal dambe aan ka ogaaday. Markaan ogaadayna ayagaaba saaxiib ahayd iska sii wadanaysa. Adigana saayid ayay jecleen, anigan maxaan ku radaa Mariyana saayid u jeclaa buu yiri, laakiin adi ahaan jacayl waa ku jeclaa. Markaasaas tiri kadib jacaylka ay jeceshahay baan kugu qadarinaya, anigana waa ku jeclaa. Markaa ogaatayna marwin qalbigiina ka dhaawaco, laakiin wax dhacday soo maaha, labadiinana isku mid baad tihiin, waan idin wada jeclaa buu yiri. Kadib ayaga labadiina soo tashta buu yiri, adigana waa ku jeclaa, adigana waa ku jeclahay. Salman guurkayga way diiday, adiga maadaama aadan ogeyn, adigana waxaad maxaan ku radaa go'aan ku soo qaadatiin waaye, waan idin sugaa buu yiri. Labadood oo isku wareereen waxay isdhahaan malahan, waxay go'aan ka qaateen labadood inay wada deeyaan wiilka. Midba midka kale waxay dhahaysaa ani marwi adiga saas ku dhahaya. Markaa arrinka waalidka xaggiisa gaaray, marka waalidkii waxay go'aamiyeen in la isku daro saddexdood, maadaama ayaga oo saddex qof oo is jecel aanan is ogeyn ay yihiin. Marka waalidka mar hadduu gaarane arrinta aad u weynaad soo maha, waxay dantooda ku qasabtay inay yeelaan. Markaas buu labadooda hal guri buu dejiyay oo isla aroosay. Saas bay ku dhaqmayaan labadoodna, saaxiibtinimadood aaday u sii weynaatay si qurux badan. Ninkeena uu labadoodba wada jecel yahay, ayagana saaxiibtinimadooda ku sii balaaratay, gurigooday dhaqanayaan, waa laba gabar saaxiibo naftaas bisa ka dhaxayso, haddana hal nin wadaagay oo la isla qabo weeyaan. Sheekadayni maanta saaxiibtinimo part 1 part 2 geeda weeyaan. Haddaad ka hesheen like noo saar asxaabe. Kan midka video xiga intaan ku kulmeyno waxaan idin leeyahay sidaas iyo amaana leh. Bye bye.